السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan walaalaha ku xiran Daalo Khayr Media. Maanta waxaan jeclaystay muuqaalkan inaan ka hadlo qodob xasaasi ah. Qodobkaas xasaasiga ah runtii markaan aan baxthi badan ku sameeyay, aan baaritaan fara badan aan sameeyay, qodobna muhiim waay. Waxaan la hadlayaa ragga weli guursanin. Ma ogtihiin gabdhaha caalamka hadda joogaan waxay jecel yihiin inay nin wanaagsan mise nin maskax fara badan mise nin ishooda soo jiidata inay guursadaan. Laakiin sir ayaa ku dugan. Gabar kasto waxay leedahay dabeecad u khaas ah iyo aragti u khaas ah. Maanta waxaan jeclaystay 4 qodob inaan ka hadlo ee gabdhaha ay jecel yihiin inay ku arkaan ragga ay guursanayaan. Qodobka koowaad maanta aan jeclaystay inaan ku soo gudbiyo waxaa noqotaa qof hanti leh. Waxaa noqotaa qof accountiga uu u qoyan yahay. Waayo accountiga hadduu ku qoynayn ma guursan kartid. Waayo gabadh marka guursanayso waxa loo baahan yahay soorida, arooska, hanti inaad ku bixiso. Dad maxaa jira, rag qaar maxaa jira gabadha markay jeclaadaan in ay guursanayaan ee deymo meelaha ka raadinayaan. Walaal waxaan kula talinayaa haddaad gabar aad jeclaato u kaadi inta xoogaa lacag ka yeelanayso, weligaa lacag ha soo deensanin. Waayo markaa lacag aad soo deensato aad guursato, aad gabadha guriga la gasho, aad rabto inaad nasato, maskaxda aad dejiso, ma nasan kartid. Waayo waxaa ku haya walwalka deynta ayaa ku haya. Qodobkayga labaad maanta aan jeclaystay inaan ku soo gudbiyo noqo qof timo leh. Gabdhaha waxay jecel yihiin ninka guursanayaan inuu leeyahay timo. Markaa leeyahay dabcan waxaan ka wadaa gar ayaan ka wadaa. Waxay jecel yihiin gabdhaha inay ninka ay guursanayaan inuu timo leeyahay ee salaaxan maanta dhan. Waayo garka dad ayaa hadda xiiran, rag qaar hadda garka way xiiraan. Waxaan kula talinayaa garka inaa xiirin, waayo waa sunnada xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam, garka wuu daani jiray. Qodobkayga saddexaad maanta aan jeclaystay inaan ku soo gudbiyo waxaa noqotaa qof jirkiisa uu dhisan yahay. Qof jirkiisa uu dhisan yahay. Ma ogtahay gabadha bilicda hore mise isha hore waxaa qabanaysaa qaabka jirkaada uu yahay. Jirkaada hadduu dhisan yahay, ogow gabadha way ka helaysaa, aragtida hore ayay ka helaysaa. Isha hore markay ku aragta way ka helaysaa. Marka waxaa noqotaa qof jirkiisii uu dhisan yahay oo jirkaada hadduu dhisnayn jirkaada soo dhis. Qodobkayga afraad maanta aan jeclaystay inaan ka hadlo noqo qof nadaafadda ilaalinaya. Nadaafadda waxay ka mid tahay iimaanka ayay ka mid tahay. Waxaa noqotaa qof nadaafadda ilaaliyo mar kasto uu rabo inuu magaalada u aado mise meel inuu aado. Waxaana carfisaa dharkaadii. Waayo markii ay gabar ku agmarto ee soo carfiso carafka ka soo baxayo, gabadhaas waxay haminaysaa inay ku hanato, inay mustaqbal kula yeelato.